astaamaha lagu garto ninka sida dhabta ah ku jecel. Gabray waxaan halkan kugula wadaagi doonaa hadduu Allaah awood la ogolaado 10 astaamood oo aad ku garan karto ninka sida dhabta ah ku jecel. Qaraxa aad xiriirka wada leedihiin amaba sheeko wadaagga aad tihiin haddaad astaamahan ku arki weydo amaba aad ka weydo iskaga carar kuma jeclee inta aad waqtiga qaaliga ah aad iskaga lumin lahayd Xaliimo. Walo maxay yihiin astaamahaas? waa ninka mar walba ku dhageysta waayo wuxuu xiiseeyaa dhageysiga hadalkaaga waana midka xasuusta hadallada aad ku sheekaysataan haba noqdo hadal yar oo kooban. waa kan ku haya waqti. ninka sida dhabta ah ku jecel had iyo jeer waa midka ku xasuusta xitaa haddii uu mashquul yahay. waa kan ku soo waca ama fariin ku soo dira. waa midka ku difaaca. sidoo kale ma ogola in lagugu dhaawaco hadal ama ficil midnaba. waa kan had iyo jeer dhibta kaa ilaaliya. waa kan jecel mar walba inuu ku farxad geliyo. wuxuu sameeyaa wax kasta oo uu og yahay inuu kugu farxad gelin karo xitaa wax yar oo hadiyad uu ku keeno haba noqotee. waa midka daacadda ku ah. waa faraxa aan waxba kaa qarinin misna kuu sheega wax walba oo run ah xitaa haddii ay ku adag tahay sheegisteeda. waa kan ku qiimeeya misna ku tixgeliya. waa midka ku ixtiraama had iyo goor ku dareensiiya in aad agtiisa ka tahay qof muhiim ah. waa midka kaa leh mustaqbal fog. haddii uu si dhab ah kuu jecel yahay wuxuu kuu sheegi doonaa qorshihiisa mustaqbalka oo adiga kaa leeyahay taas oo ah inaad ooridiisa mustaqbalka noqotid. sidoo kale waa kan kaa ilaaliya xumaanta oo idil. waa kan markuu kuu xanaaqo ama kuu caroodo si degan u dejiya caradiisa. mana ahan kan ku cidleeya misana kaa taga markay dhibaato kugu timaado. waa midka jecel inuu ku dhiirigeliyo misana ku garab istaago marka aad murugaysan tahay amaba dhibaato ay ku hayso. isaga ayaana noqda qofka ugu horeeya ee ku garab istaaga. waa kan wax walba uu ku samaynayo kugu tusa ficil misna aan hadal oo keliya ka ahayn. jacaylkiisuna kama ahan erayo qurux badan oo uu ku soo qoro oo keliya balse waa mid ku dhisan ficil joogto ah.